عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلاميا داوديال وعني رجينيا فرحد إيو عافيمات سيدا آنوغنا هاي بلشدة أدونكو سنديه قدن بيي وإسلحق الشيء وحي وذاقين وحيابا بدن وحا إسكبرتين وح بدن وين هوري وأقونين بلشوينك أدونكو وإيسا ساميين هسكو ساميان dhaqaale ha isku saameeyaan siyaasad ha isku saameeyaan dhaqan ha isku saameeyaan hiddo ha isku saameeyaan aragti iyo aqli waxyaabaha bulshooyinka adduunka isa sii baray waxaa ka mid ah applicationada ama barnaamijyada nagu soo biiray sanadihii u dambeeyay kuwaas oo bulshooyinkii hal meel isugu keenay istusayna waxa ay yihiin taas waxay ka qayb qaadatay inay bedelmaan fahanno badan inay bedelmaan fikirro badan inay bedelmaan aragtiyo laga haystay bulshooyin in bulsho loo haystay bulsho wanaagsan dhaqan fiican leh aragti wanaagsan leh xitaa haddaynan maadiyan ay horumarsanayn laakiin akhlaaqiyan horumarsan ay noqdeen bulshooyinka kuwooda ugu liita akhlaaqiyan iyo maadiyan iyo dhaqaale ahaanba waxaan maalin hore ka soo hadalay Netflix iyo guud ahaan aflaamta intooda badan iska noqday ganacsi raadiska iyo dhaqaalaha dhibka ay ku hayaan dhaqanka bulshada gaar ahaan daayirta filimada aadka u daawada kuwaas oo filimkii loo dhaxgelinayo waxyaabo badan oo dhaqanka hidaha Soomaalida iyo islaamkaba ka hor imanaya maanta runtii waxaan ka hadlaynaa barnaamijka ka khatar badan ama ka dhib badan kaasoo ah TikTok waa iska caadi inay dadka Soomaaliyeed ka mid yihiin billions qof oo adduunka ku nool oo ay cajibiso ama ka hela waxyaabaha cusub ee soo baxa kaas oo la jaan qaadaya kacdoonka tiknoolajiyada iyo aqoonta ee adduunka soo biiraya wax walba wuxuu leeyahay dhan wanaagsan wuxuu leeyahay sidoo kalena dhan xun laakiin TikTok waxaad moodaa inuu faraha ka sii baxayo waxaad moodaa inuu dadkii Soomaaliyeed uu qaawiyay dad muddo badan loo haystay inay yihiin dad ahlu qur'aan ah ahlu diin ah muslimiin ah dhaqan wanaagsan dhaqanka Soomaalinimadu uusan u ogolaanaynin waxyaabaha qaar ayaa bulshada caalamka waxa uu tusay sida marar badan aan u ahayn sida laga aaminsan yahay ama loo haysto runtii waxyaabaha uu soo kordhiyay TikTok waxa kamid ah in qoysaskii iyo dadkii guryahoodii ay noqdeen wax aan lahayn khusuusiyad iyo gaar ahaan oo meel walba u yaalo waxyaabaha TikTok keenay waxa kamid ah isqaawin aan loo midaandeynin waxyaabaha uu TikTok keenay waxa kamid ah isku dhacyo iyo rabshado iyo dhibaatooyin qoysaska ah waxyaabaha uu TikTok keenay waxa kamid ah dhiirigelinta dhaqamada xun dhiirigelinta aragtiyaha ku dhisan galmada iyo in qofkii wax ku raadiyo ama wax ku noqdo jirkiisa adiga oo ku fikiraya aqli saliima iyo maskax fayow qofka Soomaali aan weligii maqlin haddii uu TikTok tago muxuu dadka Soomaalida ka fahmayaa bulsho wada neekanaysa dhaqan fiican lahayn akhlaaq lahayn diin celinin dhaqan dabrin sariiganin ayuu ka qaadanayaa dadka islaamka ah ama afrikaanka ah ama carabta ah ee nagu hareereysan ee Soomaalida u yaqaan inay yihiin dad ahlu qur'aan ah dad diin jecel dad diinta ku dhagan dad meel walba ay tagaan gabdhahoodu xijaabka haystaan ragoodu masaajidada buuxiyaan diintana goostambeedka ku haysta hadday arkaan TikTok maxaa noo soo baxaya waxa u soo baxaya inay yihiin inaan nahay bulsho neekisa inaan nahay bulsho dhaqankoodu afka uu yahay waxa noo soo baxaysa waxa u soo baxaysa inaan nahay bulsho muuqaalka korona ka islaaman oo ka dadan oo xijaabo qabta oo diinta ku dhaqmaysa markii meelahaas ay joogaana noloshooda ay isu bedelayso kalaabiyo iyo meelo lagu neekiyo waana arrin runtii aad iyo aad khatarteeda u leh khatarta uu leeyahay TikTok dawlado badan ayaa maanta ka qaylinaya dawlado ayaa mamnuucay dawlado ayaa ku soo rogay control aad iyo aad u adag kuwa ayaa maxkamad ku saaray shirkada TikTok dhibaatada nafsiga ah ama akhlaaqiga ah ama edebta ah ama aqoonta ah ama siyaasadda ama amniga iyo askariga ah ee ay u geysatay shacabka ay u geysatay meelaha lagu maxkamadeeyay waxa kamid ah dalka Mareykanka meelaha buuq badan uu ka taagan yahay ee qarka u saaranta ilm mamnuuc waxa kamid ah Masar waxa kamid ah Algeria adduunka oo dhan wuxuu geliyay inaga kaliya ma aha adduunka oo dhan wuxuu geliyay khalkhal marka aan leeyahay aniga Instagram ama aan leeyahay Twitter ama aan leeyahay Facebook ama waxyaabo kale aan leeyahay waxaan ku isticmaalayaa magacayga waxaan sameysanayaa account baan sameysanayaa
magac adartu ma kala ku samaysan kartaa laakiin account baad samaysanaysaa waxaad tahay qof xaqiiqi ah laakiin waxyaabaha uu la yaab kale TikTok leeyahay waxa kamid ah in uu aadan magac samaysanaynin profile iyo account aad samaysanaynin aad wixii daawanayso wax aan dhammaan lahayn maanta oo dhan hadaa wadan u dhamaanaynin saadarteed waqtigii qaaliga ahaa ee qofka loogu talagalay inuu u adeegsado dhan wanaagsan bilaash buu ku dhamaanayaa waayo dadka jumhuurta u ah ama ugu badan ee isticmaala TikTok dadka u badan ee isticmaala waxa weey waa da'yar waa wixii dhashay 90kii isteetimeeyada aakhirkeedii ilaa 90kii ilaa ay dadkii dhashay 2010 ama 2012 dad 8 jir isticmaala dadkaasina waalidkood ogeyn waxa dhibka iyo rafaadka ka soo gaaraya waxa ku jira dad caruurtaas u dhibaya jinsi ahaan u dhibaya waxa ku jira dad akhlaaq ahaan u dhibaya waxa ku jira dad nafsi ahaan u dhibaya waxa ku jira waxyaabahan uu qofku la socdo ee uu arkayo maanta oo dhan ah qaawanaan ee ah xumaan ee ah faaxisho ee ah dhaqan xumo qofka markay ilmo yar oo 8 jir ay maskaxdiisa ay ku jirto oo maanta uu arkayo waalidkii seebo noqonaya waxaan leenahay waalid wanaagsan waxaan leenahay waalid aad noogu dadaala aad wax u qabta runtii nolosheena ka fikira laakiin badana aan awood iska saarin waxa ay caruurta isticmaalayaan maxay ku taraysaa haddii aad maanta oo dhan waqtigaaga ku dhimanayso oo ku daalayso oo raaxadaada iyo wixii aad qaadan lahayd aad ku ilaawayso inaad caruurtaada u xamaasho aad koriso ilmahaagii akhlaaqiyana aad control karin waxayna tusaysaa bulshada Soomaaliyeed ee TikTok ku jirta marka aragto inaan si guud ka qoys ahaan qoyska Soomaaliyeed oo fashilmay oo waxa arkaysaa gabar ama wiil hooyo wanaagsan iyo aabba ixtiraam leh oo helidiin ay dhaleen marka ay halkan ku jiraana waxa ay soo gudbinayaan aad iyo aad uga yaqsanaysid taa waxa ka sii daran waxaad arkaysaa nin xaaskiisii sariirtiisii jeefka kula fadhiya oo ay soo TikTok soo duubaya war away khusuusiyadii away ixtiraamkii away qiiradii away damqashadii qofku ka damqanayay xaaskiisii hooyadii iyo walaashii dadkiisa ku damqanayay away taas oo waxa ka sii daran gabar ama wiil yar oo hooyadii iyo aabii ku dhiirigelinayaan inuu caan ka noqdo ama meeshan ka hadlo ama uu soo gudbiyo waxyaabaha qaar war waalidku tarbiyo wanaagsan bay ubadka siinayeen kuwaas waxaaba wax yar dhaama inkastoo iyaguna khaldan yihiin waalidka aan waxaaba ogeyn ee la socon ee TikTok iyo wuxuu yahay aan garanayn mar qaar adduunka dadka mararka qaar waxa loo isticmaalaa manasaadkaas iyo meelahaas kale waxa loo isticmaalaa in bulshada laga wacyi gelin karo in bulshada wax looga sheegi karo laakiin anaga waxaan u fahanay applicationadaas oo dhan inaan isku qaawino oo aan neekino oo aan ka heesno oo aan waxaas waqtigeena oo dhan aan ku dhimino gabadh ayaa waxa la weydiiyay maxaad laba qof u kala tahay marka aad joogto TikTok iyo noloshaada caadiga ah gabadhii waxay ku jawaabtay waxaan ahaa gabadh mana aha de qof aan aqoon lahayn ama wacyi lahayn maaha gabadh waxay aqoon leh aragti leh laakiin gudaha ay kaga jirto inay noqoto caan gudaha ay kaga jirto in ay noqoto dad badan in noloshada ku xirnaadaan waxay tiri inaan soo gudbiyo wax wanaagsan oo hadaf leh oo fiican oo bulshada wax taraya igama dhigayaan inaan noqdo caan tusaale ahaan haddaan samaysto Facebook oo wax wanaagsan oo aan ku soo qoro ama aan YouTube furto oo wax wanaagsan oo aan soo duubo dadkay daawanaya ama ay arkaya 10 20 30 boqol kaba badanayaan halka haddii aan nikiyo dhar yar xidho oo aan dhar yar xirtana ay boqolaal qof i daawanayaan saadarteed waxaa jirta falsafada isticmaalayaan mar walba oo dharka isku yarayso waa mar walba oo lagu daawado marka in dharka aad isku yarayso oo aad lagu daawado maxay macno in noloshaada ku soo kordhinaysaa tusaale ahaan Twitter baad leedahay ama Instagram baad leedahay ama waxaad leedahay TikTok waxaa ku follow gareeya 1 milyan oo qof noloshaada caadiga maxay ka bedelayaan waxba kama bedelayaan haddaad shaqaysanin wax ma cunaysid haddaadan waxba baranin fikir ma yeelanaysid in followerskaaga ay noqdaan malaayiin nolosha caadiga ah waxba kama bedelayaan inta sawir soo dhigto ay helaan nus milyan like iyo inaysan waxba helin noloshaada caadiga waxba kama bedelayso wax macna ma sameynayso laakiin maadaama aan bulsho gudaha eberka ah faaruq ka ah waxaan la noolahay weynaan been ah weynaan fake ah weynaan aan xaqiiq ahayn baa la noolahay waxa follow gareeya 1 milyan oo qof 500 oo qof 20,000 oo qof 30,000 oo qof 100,000 oo qof waxaan soo haystaa inaan ahay qof cadiim oo weyn oo wax ah run ahaantiina waxa ma ihi laana waxa ma gudbiyo waxa ma sheego bulshada hoggaan u bihi diinteyda kama turjumayo dalkayga wax uma taro dadkayga wax uma taro aynas ahaantayda wax uma taro ma faa'iido laakiin maalin waxaan soo sawiraa qayb jirkay kamid ah maalin walba waxaan soo dhigaa waxa la yaab leh adduunka mararka qaar waxyaabo la yaab leh leedahay waxa arkaysaa nin weyn oo calooshiisa ku ciyaaraya maanta oo raba inuu calooshiisa uu dadka uu ku ciyaarayo raba inuu ku helo dad badan oo viewers ku helo waxyaabaha runtii la yaab kale ay ka mid tahay ogowna
in aad ku guulaysato meelahaas aan dhabta ahayn ama applicationadaas badan ee la isticmaalo inaad ku guulaysato ama qof caan aad ka tahay macnaheedu maaha inaad noloshaada caadiga xaqiiqiga aad guulaysatay dad baaba intay isticmaalaan waxaas waxay doonaan ha sameeyaan waxay doonaan soo gudbaan lacaga ka helo oo adduunka wax ka noqdo Soomaaligu sidaas ma aha maanta waxaabuu soo gudbanaya bulshadiisana ma anfacayo asagana isma anfacayo aakhiradiisana ma anfacayso runtii barnaamijyadaas oo dhan waxay tuseen ama adduunka ay soo bandhigeen ama ayna bareen sida ay mujtamacaadkeena iyo bulshadeena ay gudaha uga bogto waxayna tuseen sida aan dhaqanka aan haysano iyo diinta aan haysano ay u tahay kor muuqaal kor ay u tahay waxayna tuseen sida ay bulshadeena ugu baahan tahay inay dib isugu noqdaan inay dib aragtidooda ugu noqdaan inay dib diintooda ugu noqdaan dhaqankoodii wanaagsanaa ay dib ugu noqdaan sida aan hore u sheegnay arrintan ma aha arrin bulshadeena kaliya haysata waa wax adduunka dhan haysata gaar ahaan wadamada muxaafidka ee diinta iyo dhaqanka ku dhagan waa wax runtii aad iyo aad ay uga qaylinayaan gaar ahaan wadamada carabta iyo in badan oo ka mid ah afrikaanku waxay ku hayaan culays waxay ku hayaan dhib badan waxyaabaha la keenay waxaa ka mid ah in uu qofkii marmar qaar xitaa ay gaarto heer dhimasho qofka soo sawir iska qaadaya ama waxaynaya ama si yeelaya inuu qofkii ay heer dhimasho ay gaarsiiso ugu dambeyn waxaan ku soo goobayaa maxaan marka aan barnaamijyadan oo kale ka hadlayno aan dumarka awood u saarnaa dhaqanka waxa haya waa dumarka haddii la rabo bulsho in la dhaqan bedelo in la diin bedelo in la aragti bedelo waxaa laga soo galaa ubadka iyo dhallaanka waa maxay haweenku waa hooyo waa walaal waa xaas waa midii barbaarinaysay jiilka ubadkuna waa ilmo yar maskaxdiisu way caddahay waa warqad cad oo kale wax allaala wixii aad ku qorato ayaa toos u gelaya saa darteed bulshada ay haweenkoodu saxnayn ama haweenkoodu ay toosnayn ama haweenkoodu ay dhaqan wanaagsanayn ama haweenkoodu aragti aqoon aysan lahayn runtii waa bulsho laga guulaysan karo si dhib yar akhlaaqda xun loogu faafin karo maanta aniga reer galbeed ima barayo hooyaday walaashay xaaskayga gabadha aan dhalay xaqa ay igu leedahay ima barayo dhaqankayga ay baray diinteeda ay bartay sooyaalkayga ay baray haddii ay tahay gabar dhalayna xaq bay igu leedahay hadday tahay walaal xaq bay igu leedahay hadday tahay hooyo xaq bay igu leedahay hadday tahay xaas xaq bay igu leedahay hadday tahay gabar Soomaaliyeed oo mujtamacaas aan kula nool xaq bay igu leedahay sidaa darteed gabdhuhu waa laf dhabarta dhaqanka waa ubuucda diinta waxa waaye waa xudunta sooyaalkii Soomaaliyeed ay lahaayeen say u nool yihiin ay u labisanayaan ay u muuqdaan waxay ka turjumaysaa bulshada Soomaaliyeed bulshadeena halbeegeeda lagu cabiri karana waa waxa ay dumarkoodu yihiin nin ayaa marka wuxuu yiri ayro iska kaftana aan ku soo gabagabeynayo haddii aad rabto guur gabadha aad guursanayso waxaad fiirisaa sawiradeeda Snapchat-ka waxaad fiirisaa muuqaaladeeda YouTube-ka waxaad fiirisaa sawiradeeda Facebook-ka Instagram-ka waxaas oo dhan fiiri kadib ayaad garan kartaa inay gabadhaas tahay ay noqon karto hooyo wanaagsan oo ubad korisa iyo inay tahay kaliya qof soo bandhigta muuqaalo ka turjumaya sida jirku muhiim u yahay ee aan maskaxda muhiim ahayn sidaa darteed dumarka Soomaaliyeed oo ah kuwa sida dhaqanka iyo hidaha iyo suubanaanta Soomaalida waxaan kula dardaarmayaa inay ku dhaganaadaan dhaqanka in ay ogaadaan in TikTok iyo meelo mida laga neekiyo inaysan wax macno lahayn ay dhaqan xumo ku tahay sumcad dil ku tahay naftaada waalidkaaga qoyskaaga bulshadaada iyo diintaada fiiro gaar ah meel walba oo la isticmaalo oo barnaamijyada kala duwan wuxuu leeyahay dhan wanaagsan iyo dhan xun aniga waxaan ka hadlay waxa waaye waa dadka oo isticmaala dhanka xun dhanka taban dhanka ka fog wax walba inagu aan aaminsanahay ma aha bulshada oo isticmaasha dhanka wanaagsan ee diinta iyo dhaqanka iyo sooyaalka iyo soo bandhigida quruxda inagu aan leenahay haday noqoto qurux shakhsi iyo haday noqoto qurux dal iyo haday noqoto qurux suugaan iyo haday noqoto qurux dadnimo haday noqoto laakiin dadka aan la hadlayo waa dadka meelahaas u furanaya kaliya in ay gudbiyaan aragti aan sax ahayn ka gudbiyaan bulshadooda qoyskooda iyo mujtamacaadkooda aad iyo aad ay u mahadsantihiin